gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ee Soomaaliya ayaa xilalka ka qaaday gudoomiyaasha degmooyinka Doolow, Luuq iyo Balad Xaabo oo in dhawaalaba ay ka taagnaayeen xiisado ka dhashay khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland kaasoo markii dambe isu bedelay dagaal labada dhinac ku dhaxmaray dowladka Balad Xaabo horaantii bishan. Cusmaan Nuur Xaaji oo loo yaqaan Macalimo oo wareysi siiyay wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa sheegay in gudoomiyaal cusub loo magacaabay degmooyinkaasi loogana fadhiyo in howlaha maamul ee horyaalo ay dardar galiyaan. isbedelka waxaan ku sameynay saddex degmo hadda aan joogno meesha ciidamada gobolka Soomaaliyeed ayaan hadda waxaan ku radaa ay tageen meesha laga Balad Xaabo Luuq Doolow gudoomiyaashoodii iyo xubno kamid ah waxaana lagu bedelay dad waxaan ku radaa kale oo ayaan aad u shaqeynaya waxaan ku radaa kana soo baxay kuna imaaday fikrada bulshada qaybaheeda kala duwan dadka ayaan ku bedelnay aqoontii maamuladii hore oo hadda aan ka bedelnayna waxay ahaayeen rag aad soo shaqeeyay dadkoodan hore u gutay laakiin adduunka wuxuu iska yahay isbedel inuu yimaado waxaa ku dhisan nidaamka dawliga ah waana sharci haddii isbedelayo waxaa halka ku jira dowladnimo iyo nidaam insha allahu tacaala raggaas waan bedelnay waxaana ku bedelnay gudoomiyaal cusub saddexdaas degmo insha allahu tacaala raggii kale oo aan ku bedelnay aad bay usoo hambaleeyeen gacanta ay iskiyeen in ay si wanaagsan maxaan ku rahdaa ay uga shaqeeyaan oo halkii shaqada ay u maraysiin raggan kasii bilaabaan ayagana ay kula shaqeeyaan ayaan isla qaadanay si calulfiyoodaha hawshaas waa loogu kala wareegay isbedelkaas ayaa lagu sameeyey. Gudoomiye yaa magacaabistan sameeyey? walaal aad baa mahadsan tahay waxaa sameeyey maxaan ku rahdaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gado amniga siyaasadda macalin weliga kula hadlaya. Gudoomiye awooddaas ma leedahay inaad adigu magacawdo gudoomiyaasha? walaal aad baa mahadsan tahay nidaamkii sharciga haddaad garanaysa gudoomiye degmo waxaa xukuma gudoomiye gobolna waxaa xukuma wasaaradda arrimaha gudaha waxaa sharci ah oo bedelka gudoomiyaasha degmooyinka iskala gudoomiyihii gobolka isagaana bedelay hadda waxaan ku rahdaa meesha fadhiyo oo shaqada hadda wada dowladda Soomaaliyana ay ku og tahay walaal isbedelka marka taa ayaan ku sameeyay. sida aad ii sheegtay gudoomiyaashan adiga ayaa magacaabay marka adigu yaad warbixinta siisaa oo aad toos ugu xiran tahay? aniga warbixinta waxaan toos u siiyaa dowladda Soomaaliya federaalka waxa dalka ka shaqeynaya hadda la ogyahay waayaga dowlad Jubbaland oo dhisan oo hadda la ogyahay ma jiraan. xilligan maxaa ku soo beegay inaad gudoomiyaasha degmooyinka aad hadda ka hadlaysa aad bedesho inagoo og in xaaladda agagaasi ka taagan ay tahay mid aad u adag? walaal aad baa mahadsantahay wax adag ma jiraan dowladnimada iyo nidaamkana waa sharci dawli ah in la isbedela la ismagacaaba la isdoorto intaba nidaam dawli ayaa iskale haddana waxa meesha ka jira isgargaca mahana waa nidaam dawli oo sharci ah systemkana waa system hadda waxaan ku rahdaa socdo oo lagu shaqeynayo agoor dhowna waxaan gaari doonaa haddii la halka noqdo doorasho cusub oo sharci ah dowladda maxaan ku rahdaa dowlad goboleedka Jubbaland cusub ugu dhisay haddii la halka noqdo ragga ayaa ah oo hadda la bedelay dowlad goboleedka cusub ay kasoo geli doonaan hadday wax keelaan hadday ku weeyaanba qof kasta oo Soomaaliyeedna wuxuu istaagayaa dowlad goboleedka cusub oo Jubbaland waa dhisay hataa laga bilaabo aniga iyo maxaan ku rahdaa dalka Jubbaland oo dhan deegaanka dadka degan.